waxaan shirkaanaan jaraa-id waxaan maanta uga hadlaynaa arrimo dhowr qodob ah innagoo ah maamulkii 3 hilo anigu waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka maamulka 3 hilo xasan shariif kiiriye waxaa ila jooga guddoomiyihii khaliif warsame iyo xooghayihii marka waxaan rabnaa inaan dhowr qodob inaan uga hadalno meesha oo ah keliib hadda ka horbaxay waxyaabo yooda ku saabsanaa kaliibkaas waxyaabo anigu aana sheegin oo dadka macnaha iga been abuuray doonahayay inay macnaha fidno iyo ka faa'iidaystaan khilaaf yaroo jiri dadkaasoo baahiyey gudoomiye ku-xigeenku waa iscasilin waxaan rabaa inaan caddeeyo inaanan iscasilin taasi waa qodobka koobaad midka labaad wax yar oo hadduu ilaa kooro yahay khilaaf yar oo maamulka dhexdiisana soo kala dhex galay isagana waa dhammaynay waa ka wada hadalnay khilaafkaas waana soo gebagabeynay waana isaga garawnay waa isaga tanaasulnay taasna waxaan rabaa inaan gaarsiiyo inta ay khusayso arrintaasi waan u sheego khilaafkaas waa soo gebagabeynay waana hadduu ilaa kureeyay waa soo intihooday waxaa inaan wada shaqayno ayaanu ku ballannay inaan wakti abaaraad baa lagu jiraade aan khilaafkaasi lasii kobcin meeshaas lagu intiheeyo lagu dhameeyo aanan wada shaqayno oo aan dadka u wada adeegno ayaan ku heshiinay waxyaabihii jirena si hoose ayaan ugu wada hadalnay guddi naga sarreeyana waa macnaha maamulada naga sarreeyana waa noo iman doonaan oo siday macnaha inay ayaguna wax nala gala jari doonaan oo hawsha nala fariisin doonaan oo ay naga xagga sharciyadda iyo maamulka shaqadiisa ay naga caawin doonaan bay noo sheegeen intaas war xun oo lagu waah waxaan rabo ku darhayaa oo raba inaan ku baaqo deegaankan wuxuu ka mid yahay deegaanada abaaruhu ay saameeyeen oo ilaa abaar 4 sano ay hayso ayuu ka mid yahay waana deegaan aada u ballaaran oo mujtamac badan ay ku nool yahay in waxaan rabaa inaan ugu baaqo hay-adaha samafalka dowladda federaalka dowladda galmudug dhammaan in deegaankaa la caawiyo loo soo gurmado annaguna inaan la shaqayno baan diyaar u nahay waxaan ku wareejinayaa guddoomiyaha waaya bismi illaahi araxmaan iraxiim ilaahay baa mahadada iskale magacaygu waa khaliif warsame guddoomiyaha deegaanka 3 hiblo maanta halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa-id oo aanu uga hadlayno sida guddoomiyuhu soo xusay keliib lagu baahiyey baraha bulshada oo ka hadlaya in guddoomiye ku-xigeenku iscasilay taa isaga afkiisa uga hadlay waxaanu kaloo uga hadlaynaa halkan ummaddan maantay abaaraha iyo dhibaatada iyo waxaa ka jira sidaanu anaguba ku wada hadlay inaan khilaaf iyo maamul burbur iyo dhibaato aan loogu darin maamulkeena muddo soo shaqeynhayay wuxuuna ku yimid sharciyad dadka deegaankan joogaa ay sameeyeen ku heshiiyeen dowladdii markaa shaqeynaysana ay la fariisisay haatanna insha allahu tacaala dadka ay ka go-do oo culimada iyo waxgaradka iyo dowladda ama degmo ha ahaato ama gobol ha ahaatee heerarkeeda dowladda kala duwan ayaanu rabnaa inaan markii maamul la bedelahay si sharci ugu wareejino maamulku waa qori isku dhiib laakiin maamul qas iyo fawdo iyo qajajaca ma jiro waxaan rabnaa wax fatraaba lama ogola maalintaan xeelka ka degayna waxaan ku ballanay ka hor in maamul lasoo dhiso inta maamul laga soo dhisayana annagaa shaqada waday sidaa darteed xoghayihiina waa iga dambeeyeen waxaan ku baaqayaa cid kaste oo naga caawin karta arrimaha maanta jira oo abaaraha iyo dhibaatada in nalala shaqeeyo dadkana loo shaqeeyo dad kaste oo ka qeyb qaadanaya carqalada iyo khilaafkana waxaan leenahay ka fogaada xagga diintana khilaafka waa la ogyahay wax sida u yahay xagga dadka iyo deegaankana uma fiicna marka waxaa iyagana baaqaasa nasteexaan u diraynaa dowladdana waxaanu leenahay dhima jiro shaqo iyo wada shaqeyn wanaagsan baan rajaynaynaa inaad nala garab istaagtaan waana ku ballansannahay aada iyo aad baa umahadsantihiin xoghayaha ayaa 2 kelimo kusoo gabagabeynahaya
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamahayaa bulshooyinka reer Saddexilo halkan waxaan shir ku qabtay gudoomiyaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha degmada Saddexilo yaana xoghayihi ah cali cadeed shaqaale waxaan bulshada reer Saddexilo u sheegayaa khilaafkii meel kasta la marsiiyey gudoomiyaha ku-xigeenka waa is-casilay wuxuu loo cadeeyey inuu is-casili isla casili doonin waa maamul jira wax yaroo khilaafaadaad baa jirjiray wixiina waa ka heshiinay waa dhammaynay anuu xogtii dhabta ahayd baan bulshada reer Saddexilo u sheegaya waxaan u sheegayaa dowladda galmudug maamulka gobolka gaalkacyo waxaan u sheegayaa halkaan heshiis baa ka dhacay waana heshiinay dadkana sidaa ogtihiinba wakti kuleylka iyo baahida iyo waa lagu hadlaya waxa la yihahda adaa shaqayn waaye adaa wax caajisay adaa seexay waxa intaas dhaafsan arrintan ma ahan waxaan marka reer galmudug gobolka gaalkacyo gudoomiyaha gobolka maayirka dhammaan waxaan u sheegayaa iyo maamulka dhammaantiis inaan wax khilaafi lagu jirin waxaan caddaynahayaa anoo xoghayihiya inaan daawownay bulshadii reer Saddexilana aan u adeegayno maamulka naga sarreeyaan aan la shaqeyno. Wasalaamu calaykum.